bisha barakeysan ee Ramadaan salaadiinta Soomaalida halkan joogta waxaan leenahay Ramadaan Kariim meel kasta ummadda Soomaaliyeed joogto iyo guud ahaan ummadda muslimiinta maanta waxaan halkan isugu nimid inaan bal waxaan ku beeri karno ku beerino dhibaatadii muddo ka socotay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo runtii aan la socono in muddaaba in aad la isugu dayay in arrintaas wax laga qabto laakiin wali dhibaatadaas ay taagan tahay haddaba salaadiinta Soomaaliyeed ee halkan fadhida waxay isu xilqaameen muddo badan ay ku taamayeen inay mar uun tagaan ay waxay fikirey halkaas ka sheegi karaan ama ka jeedin karaan inay halkaas la tagaan fikirkaas taas ayaana maaragtay aan jecelahay maanta inaan u aadno magaalada Garowe kadibna aan ugu sii gudubno magaalada Laascaano ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo waxaan rajaynaynaa halkaas kadibna markaan ku aragno cid ay qosayso hawsha ama magaalada Laascaano kadibna insha Allah taala waxaan u gudbi doonaa Somaliland waxaan rajaynaynaa dhinacyadu inay insha Allah taala na aqbali doonaan fadliga bisha Ramadaan ee barakeysan iyo dhibaatada gudaha gaar ahaan Soomaaliya haysta guud ahaan Soomaaliya haysta gaar ahaan magaalada Laascaano ka taagan cid kastana waxaan maaragtay ka rajaynaynaa kana codsanaynaa uguna duceynaynaa in Ilaahay oo baqaan oo nabad laga shaqeeyo qof kasto qabrigaaga aad ku gaar yahay Ilaahay ka baq waxaan wanaag ka shaqeyn anagu intaas baan u soconaa siyaasad kama shaqeyno wax kale kama shaqeyno wanaaga isu keenta